magacaygu waa xildhibaan maxamed cabdinaasir oo ka mid ah baarlamaanka Jubbaland ee hadda jooga baarlamaanka labaad TV-ga Puntland iyo wariyaashiisa waa salaamantihiin waxaan u maleynayaa mawduucu waan isla kulanay wuxuu ku saabsan yahay malaha odayga oo xalay iclaamiyay inuu musharax madaxweyne yahay haddii marka ay saa tahay waa soo dhaweynaynaa odayga waxaan u aragnaa inuu ka mid yahay dadka Soomaaliyeed hadda xilligan la jooga sabata bixin kara shuruucda iyo hab dhaqameedka iyo habraacyada iyo waxa ay Soomaaliya ku heshiisay heshiiska bulshada dadka in la fuliyo ku dhagan inuu ka mid yahay baan ugu tala gashanahay waxaan rabnaa wadankan inuu isbedel ka dhaco dadkiisa iyo dalkiisaba la samata bixiyo wanaag loo horseedo oo noqdo wadan background leh siyaasad degan leh mabaadi' la yaqaan ku shaqeeya leh meel loogu soo hagaaga leh doorashadiisu waqti cayiman ay leedahay waxa ugu muhiimsan ee rabaa inaan TV-ga Puntland la wadaaga waxay tahay waan soo dhaweynaynaa odayga waana ku taageersanaa kulli anaga dadka cod kale ma nihin oo codku wuxuu ku xidhan yahay xildhibaanada 329 ee dawladda federaalka Soomaaliya leedahay waxaana kula dardaarmi lahaa wadankan inuu helo isbedelka loo baahan yahay oo saameyn doona mustaqbalkeena iyo ka ciyaalkeena iyo ka generationada soo socda ee Soomaaliyeed maxaa yeelay wiilka dhalinyarada hadda halkan taagan hadduu ka beermo family 2000 oo ruuxa intan bay dhulka ku leeyihiin shuruucdana intan ay ku leeyihiin dadkana intan ay ku leeyihiin marka waxaan idin leeyahay idinkuna waa mahadsantihiin madaxweyne Cabdullaahi Siciid Cabdullaahi Deni waxaan leenahay soo dhawow lana shaqee tiimka kale ee isbedelka ku midaysantihiin sidii aad xalay sheegtay wax macnalana waa la idinka sugayaa haddii uu xilka madaxweynenimada Soomaaliya ku guulaysto maxaa isleedahay uu ka bedeli karaa Soomaaliya wallahi horta waxay ku xidhan tahay ruuxani talagalka Soomaalidu waxoogaa yar oo baynaajir oo waxa jira aynu yar leenahay oo ruuxu kolku xilka qabto in yar sidii iska yara bedela laakiin waxaan isleeyahay Siciid hadda waa oday muxuu ahaa siyaasadda wadanka ku soo jiray hadda madaxweyne ah inuu xil ciil u qabin baan u malayn marka waxaan isleeyahay wuxuu ku soo kordhin karaa waxa ugu muhiimsan oo ah bal horta wadankan inuu mabaadi' degan yeesho oo meel loogu soo hagaago oo positive wadan u socdo uu noqdo aniga hadda waxaaba ila muhiimsan wadankan inuu wadan positive noqdo si degan u socdo manaahij la isugu soo hagaagana yeesho bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ama bacd magacaygu waa aadan axmed xaaji cabdullaahi aadan yare waxaan rabaa inaan halkan uga diro ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed hambalyo soo istaagitaanka uu soo istaagay madaxweyne Deni runtii waa niman saaxiibanahay aqoon badan aan u leeyahay aan isleeyahay maanta Soomaaliya inuu yahay nin badbaadin kara marxaladda ay maanta Soomaaliya ku jirto ninka kaliya aan isleeyahay uu bixin karaa rakalo far badan oo saaxiibanahayna runtii iyaguna way taagan yihiin aan isleeyahay Deni mudnaanta koowaad ragala ayuu ka mid yahay Soomaaliyana guul bay u tahay Deni inuu maanta hogaamiyo insha Allah taala waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed waxaan leeyahay xildhibaanada labada gole ee dawladda federaalka Soomaaliya codkiina ugu heeliya maanta dalka Soomaaliyeed 5 sano oo mugdi ah ayuu dalka galay marxaladda dalka uu soo maray xogaal baad u tihiin maanta dalka wuxuu u baahan yahay badbaado qaran cidda badbaadan karta ayuu maxay ahayday madaxweyne Deni uu ka mid yahay insha Allah taala codkiina waxaan rabaa inaad labada gole aad u heelisaan dalka Soomaaliya inaan mugdi lagu celinin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 5 sano dalka meeshuu ka tuuray waad ogtiin meeshuu ku wadana way ka sii xun tahay insha Allah taala dalka in la badbaadiyo ayaan xildhibaanada kula talinayaa aad baad u mahadsantiin magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deni oo u sharaxan xilka madaxweynaha Soomaaliya Siciid intuu Puntland joogay wax badan ayuu qabtay inta la ogyahay taariikhda wuxuu ku soo daray ciidan tayo leh oo daryeelkooduna waxa weeye daryeel leh si bil walba mushaarkooda ay u qaataan waxaan hubaa wuxuu ka qabtay Puntland waxa weeye nabadeynta sida gaalkacyo inuu Soomaaliya wax badan ka qaban doono
سعيد عادي يا دقود سنتين هاي قد قالن كارك حسدا طلبات مدحوينه سيد عبد الله الدني waxyaalaha ku sintay waxa kamida muddo 6 sano laga joogo ayuu dalka dib waxa weeye uga qabtay doorasho qof iyo cod waxaan aaminsanahay fursadii farmaajo waxa weeye uu heli waayay inuu ku qabto qof iyo cod inuu sida Cabdullaahi Deni uu qaban doono oo ay qof la soo tijaabiyay weeye marka waxaan rajaynayaa guul u waarta Soomaaliya oo dhan waxaan u arkaa fursad weyn oo maanta dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ba u soo haweeye baxday in lagu garab istaago mooyee in haweeye inaan wax kale naga mudnayn waxaan leeyahay sida Cabdullaahi Deni mar labaad iyo mar saddexaad baad u qalantaa xilka madaxweynaha Soomaaliya qofkii ugu habboonaa baa tahay ilaahayna ha kula garab qabo Cabdulle Saalax Ciise Cabdulle Jacfar warbaahinta dawladda Puntland Kenya